dumarka ta ugu khayr badan buu nebigu yidhi waatee waata marka uu ninkaygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaashan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi taabiciintii buu ahaa silata ibnu ushaym raxmat ullaahi calayh nin wuxuu ahaa aad u da'diisu intay weynaatay ictizaal buu sameeyey ictizaal waa maxay yani mujtamacii buu ka dhex baxay cibaaduu markaa u tafaruqay maalinkiina siyaam habeenkiina qiyaam maalinkiina soom habeenkiina salaatuleyl markaa nin adeer u ah baa u yimid oo ku yidhi inantaydii baan ku siiyey waana kuu dhisaynaa waa la soo qaaday magaaladii baa la keenay gabadhii baa loo meheriyey markaasay ninka waa nin caabudu cibaado badan dharna ma haysto markaasaa lagu yidhi qolka xamaamkaa galoo maydho baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tahay orodoo halkaa ku hoya baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horeysa ee leylatu zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosaddu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu assalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu 2 rakaco uu tujiyo iyada inagu sidaa ma samaynaa yaa haleelaba qola kaamera wadatayna haysatabe soo maahin de laa ilaaha illa allah wataan arkayna dhalinyar halkaa buuraha hoostooda taaganoo yaa layta war zayigii islaamka un balmaan qaadanaa maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunnatu caada xataa caadadeennii waxaad mooddaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii dheeraanayno aan ka sii dheeraanayno dhaqanka islaamka leylatu zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa 2 rakacay iyuu ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anaa kuugu imaama anna waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebi maxamed inaanu kugu hogaamiye sida 2 rakaca aad igu daba tukatay haddeetol aniga ii daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay ile nebigu waa kii lahaa khayru الnisaa man idaa nadarta ilayha saradka waidaa amartaha aطaacadka waidaa gibta canha xafidatka fii nafsiha wamaa laka dumarka ta ugu khayr badan buu nebigu yidhi waatee waata marka uu ninkaygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaashan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi marka 2 ragcadood ee sunnaha gabadha habeenkan la tujinayo waa hadyigii saxaabada waa hadyigii salafka waxay ka dhigan tahay haddeetoola adiga anaa kuu imaama ana taacadda ilaahay iyo taacadda nebi maxamed baan kugu hogaamine sidaas salaada aan imaamka kuugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada anigaa kuu imaamay daba joogsay ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxaa sunnaa halkaa fooda in la qabto fooda ducadee lagu akhrinayaa allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat calayha soo mahayn
khayra maa jubilat calayh waacuudu bika min shariha wa shari maa jubilat calayhi waxay ka dhigan tahay waxaa ducada macnaheeg waa maxay ilaahow haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeygana waan kaa magan galay sharka aad ku abuurtana waan kaa magan galay halkaa foodda maxaa loo qabanayaa foodda waxaa ku taalla bay culimmadu leeyihiin waa daakiradda qofka bini aadanka xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada haddaad kala garan weyda ka warran labada soo khatar ma wamaa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha lidalika ilaahay qur-aanka waa kii lahaa uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina aamanuu dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajidda ku barbaaray ee daacadda ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay yidhi boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam 150 hadduu gaadho caqligiisu waa taam 200 hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa way shanqadhi qalow birba ka dha shanqadhi uma radadnaahu asfala saafiliin baa u taalla lidaalika habeen ka horeysa gabadha halkaa in la qabtaa sunnaa markaa ninkii labadii rakaca markuu kacay ee iyadna ay daba joogsatay say 2 rakaca ugu jireen salaadii fajar baa loogu eedaamay innagana ka warrama habeenka caroosada la soo hooyo dumarka ku yar hadha ayuu caroosku raagsadaa ayuu leeyahay war kuwan khayrkooga allah badiye bay kaa soo baxaana soo saa maahide ما شاء الله 2 rakacadood buu habeenkii oo dhan ninkaas taabiciga Salaat ibn Ushaym raxmatullaahi calayh sidoo ugu jiray ayaa salaadii fajr loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bahay oo saalixad oo sidiisa oo kale una at-tayyibaatu lit-tayyibiin wat-tayyibuna lit-tayyibaat ilaahay baa quraanka ku sheegay nin dhalinyaro ayaa nin sheekh u yimid oo ku yiri sheekh gabadh wanaagsan oo wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helaa ii sheeg buu ku yidhi marka sheekhi baa ku yidhi adigu haddaad noqotid addoon ilaahay oo wanaagsan addoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kuu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid haa gabadh diin leh addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu الصالحة سو نبي مودن نولش أدويد وبراحير راحة يري أدويدنا وحى هلبو نبي يري نك إلهي وكو هجاجي جبر وناكسن ودين لي سو ما دون سيدنا نقول إن هذا جبر وناكسن ها هذا بعض وانا نقطع الدون إلهي وناكسن مرجع نك نين وناكسن بوها إلهي وحوك هنا جبر وناكسن وحبين كيدنا صلاة الليل كي يدنا أحانا نقولن هذا كي فجر كان دعي وكبح يقلك إلى المسجد صباح دي بهوان كي بقوي مدع عروسدي بل ورن وانا اللي وقاني كان ينين عابد الصوفي وانو جيدين بدمر مركز سيكون تري صلاة دي انقلي بكا بحني تري هذا كي فجر كان سكدهين ليس السلامة صلاة دي انحرني لما دي ركعات هذا كي فجر كان نقب حيي تري سجى الله قبصة مركا أولي ورني كأن خير الله كوسية حال عروسة حالته ولا عتصده وقوق شيء وعوري إنك هيك قدر بويودي مركي أوريس حمام بعد جلسون ودقول ترادين بيها كلكم مايرو بيه كل لوكا قبوبا مكتب بيه كل بالله دقي بيه كل الأمر كان يسكت شباب بويودي نار تبان حسوس تبويودي لفيس عذر در عصبنا وادي يبسين وادي جلسين عذرنا وادي مرسين قل وهذه جلسين قبل قروح بدن ولا ديارين عديد أي تحت الله قل كأمر كان قالنا الجنة دي من حسوستي بيودي لبدي الركعة أمر كان حد بيودي جنة دي النار تسلا نقول فكريا صلاة دي فجر لقوا يا ضابط بيودي قلوبتنا الله ينور